waa goor hore oo aroortiya badi dadku waxay u jarmaadeen ganacsiga shaqada iyo waxbarashada. waa 4 Diseembar 2019 15 beri oo kaliya ayaa naga xiga sanad guurada koobaad ee doorashadii madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaan u qalab xirxiranay Baydhabo si aan u daaqaadno waxa uu qabsoomay dowlad goboleedkaasi. waxay ahayd maalin taariikhi ah, maalin ku xusan qalbiyadooda. 19 Diseembar 2018 baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen u doortay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi. 16 Janaayo ayaa magaalada Baydhabo lagu caleemo saaray madaxweynaha Koonfur Galbeed iyadoo munaasabada ay ka qayb galeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxda dowlad goboleedyada, duubabka dhaqanka, xildhibaano iyo wasiirro heer federaal iyo heer dowlad goboleeda. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markaasi madaxweynaha Koonfur Galbeed kula dardaarmay inuu ka soo dhalaalo himilooyinka ay ka sugayaan bulshada Koonfur Galbeed, gaar ahaan dhinacyada amniga iyo dib u heshiisiinta. wuxuu muujiyay uu noo cadeeyay uu noo sheegay baahida dhabta ah oo gobolka ka jirta ay ugu horeyso arrimaha amniga oo caawa dhowr jeer lagu celiyay. arrimaha amniga runtii waa arrimaha ugu muhiimsan dowladdan oo ay tahay dalkan inaan ku soo dabaalno amni buuxa, khaasatan gobollada koonfureed oo ay joogaan qolada inkaabta qaba ee shabaabka ah oo arxadarrada ah oo u jooga Soomaaliya inay dib u dhigaan ay burburiyaan shacabka Soomaaliyeed hantidooda iyo waxa ay layn karaan ay laayaan. marka arrintaas amniga ah waa arrin noo wada taalla. insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdana waxaan ka geysanaynaa gacan buuxda hadduu Eebbe yiraahdo. Diseembar waa taariikh lama ilaawan. madaxweyne Laftagareen oo taageernay bulshada. madaxweyne Laftagareen waxa uu 2 Febraayo magacaabay golo wasiirro oo ka koobnaa 10 xubnood, isagoo isla bisha 29keeda baarlamaanka horgeeyay. wasiirradu waxay la wareegeen wasaarado magac ahaan u jira, xafiisyo faaruqa iyo xarumo aan howlwadeenno iyo agaasimayaal toona lahayn. maantase waa kuwa camiran. waxaa la howlgeliyey shaqaalihii ugu badnaa ee dowladdu qaadato iyo agaasimayaal xirfad u leh shaqooyinka wasaaradaha. wasiirrada oo dhan waa soo hambalyeynayna shaqo iyo mas'uuliyadana saaran. nin walba uu mas'uuliyadiisu gudanayaa, dowladnimadayna ku fiican tahay haddii hal arrin wasiirka uu suuqiyo oo si daacadnimo ah oo qalbi wanaag ah uu horta kow marka ugu horreysa uu la yimaado, uu cadaalad ku daro, uu shaqadiisa inuu daacad u yahay oo dalkiisa iyo dadkiisa inuu u shaqaynhayo uu ku daro, uu u soo jeedo waajibaadkiisa. waxaan aaminsanahay meeshii laga rabay iyo meeshii loo socday waa la gaaraya. marka niman dhallinyaro oo fiican baa tihiin oo wax soo bartay aqoon-yahanaa, rajo badanaa laga leeyahay. ilaahay idankiisa anigana waa in kala shaqaynayaa. iyo sidoo kale in maamuladii hore u jiray qaaraan si wanaagsan aan u shaqaynayn in isbedel lagu sameeyo oo maamulo ku meel gaar ah loo dhiso degmooyinka kuwaas oo gaarsiin kara ilaa laga gaaray golo deegaan looga dhisay. sidoo kale dib u heshiisiinta waxay ka mid ahayd ballanqaadyadii ugu waaweynaa oo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya guud ahaan bulshadu uu sameeyay doorashadiisii xilliga doorashada oona madaxweynuhu daahfuray isagoona muddo bil ah iyo waxyaas ka yar ofiska joogay inuu dib u heshiisiintii ku daahfuray Baydhabo oo uu goobjoog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. taasna bilow bay ahayd anagoo fulinayna awaamirtii madaxweynaha in dib u heshiisiintaas la dardargeliyo Baydhabo laga bilaabo aan gaarsiino dhammaan guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada Koonfur Galbeed. marka dhinacyadaas ay ku aadanayeen waxa la dhinac kasto ay noqotaba wax wanaagsan baa laga qabtay. sidoo kale in dib u habayn lagu sameeyo wasaaradii iyo shaqaalaha iyo tayadii wasaaradii iyo capacity ay bulshada adeeg ugu qaban lahayd in la soo dhiso. aan aaminsanahay shuruuciyadii lagu shaqeynay dowladda
shuruucdaas ay ku shaqayn lahaayeen inay wasaaraddu ka shaqayso in la soo saaro waxay ahayd qaybo ugu waaweyn oo guulana laga gaaray aan isleenahay maanta shuruucdaas la soo saaray qaar ka mid ah inay toos hadda ugu shaqaynayaan degmooyinka haddana lagu wado sidii lagu tababari lahaa golayaasha deegaanka ama xataa maamulada oo caadiga in lagu tababaro sharciyadaas ay wasaaraddu ay ku soo hormarisay hadda ay soo saartay marka intaas isugu jirtaa shaqooyinkaasna way socdaan wasaaradda cadaaladda iyo madaxweynaha kaalada sameeyay diiradda saartay in la shaqaaleysiiyay garsoorayaal cusub iyo la maro nidaamkii shaqaaleysiinta garsooryaalka oo guddiga idin garsoorka fuliyo meel shaqaaleysiiyay dhalinyaro jaamiciin qaarshaha ku bahay Suudaan qaarshaha ku bahay Pakistan khibrad aan la cilmiga oo shariica wal qaanuun iyo howlo kale badan oo qaadanaysa waxay leedahay qaybo kala duwan oo maamulka iyo maareynta ka mid tahay qaybo kale oo madax bannaan guddiyo hoos maado madaxtooyo oo madaxweynaha maamul guddiga dib u heshiisiinta kale iyo guddiga horumarinta iyo dhaqanka guddiyada dhan madaxtooyo way agaasintaa marka ay horumarka dowladda qaadanayaan madaxweynaha dowladda koonfurta Madaxweyne Xasan Maxamed kale madaxtooyada howlaheeda kuwa kulaada waxaan rajeynaynaa sii kordhino oon sii ballaarin madaxweyne cabdicasiis lafta gareen wuxuu la wareegay dowlad goboleed magaalooyinka qaar aysan xor ahayn la ganacsan karin la shaqaysan karin xor loo hadli karin lana safri karin ogaan la'aan si dhibkaasi looga baxo wuxuu qaatay go'aan geesinimo leh dhismaha ciidamada qalabka sida ee koonfur galbeed Soomaaliya waxaa la qarameeyay ciidamo hor leh waxaa la tababaray kuwa cusub waxaa la jaangooyay cadadka mushaharkooda waxaa la hubiyay hubka iyo adeega waxaa la tayeeyay ciidamada qalabka sida waxaa la dejiyay qorshaha amniga Baydhabo iyadoo la xoojiyay wada shaqaynta ciidamada iyo shacabka waxaan noo suurtagalay inaan diyaarino ciidamo loogu talagalay inay amniga sugaan oo ay isu furaan jidadka ciidan fiican aan qornay qaarna tababaray noogu maqan yihiin qaarna waa noo tababaran yihiin waa noo joogaan si kalsooni loo geliyo waxaan bilownay in lagu sameeyo dib u habeyn reform lagu sameeyo registration loo suubiyo ciidan qaran laga dhigo si ay xuquuq iyo mishaar u helaan ciidankaas qaarna way xariigsan yihiin oo tababara u socdo waxay ku jiraan Generaal Kaahiye xarunta tababarka booliska Generaal Kaahiye Muqdisho qaar ku xareysan oo بوليس كونفور قلبت حد كان واحد قشيرنا عيدا كلا أو أنت أصلك إن نحرينه أو بيرلو تطبره جديد كي أغلب كي استعمال الحين والديار واحد الديار كوين وزارة الحديدة باورتي لو ترى قال يوضد الوفرة ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM ayaa muddo 7 bilood cadawga kala wareegay magaalooyinka kala ah degmada Awdhiigle deegaanka Sabiib deegaanka Caanoole deegaanka Bariire iyo deegaanka Ceelsaniin waxa laga xoreeyay al-shabaab deegaanada ay ka mid yihiin Sabiib Caanoole Bariire Awdhiigle iyo Ceelsaniin qorshooyin badan kala degsan oo lagu xoreynayo inta dhiman oo ay kaga harsan yihiin al-shabaab deegaanada koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed oo ka duulaya maamul daadejinta iyo dhismaha golayaasha deegaanka ayaa booqasho ku tagay 7 magaalo Xudur Baraawe Dinsoor Marka Walaweyn Ceelberde iyo Waajid oo qaarkood aan horay madaxweyne u tagin isagoo dib u heshiisiin u sameeyay bulshooyin kala qoqobnaa oo horay diriir u dhex martay degmooyinkan ka muhiimsan koonfur galbeed deegaanka xumo ay iseen ku daayni mar hore haytiin oo makooyno laakiin wala kama qonayneey wala laali walaay baahidii iyo wala isin fadaasan in aan kuurgalkaas kuma qonayni geedka ilaahayna sheeni oo mun ilaahayna sheeniina wala ballan qaadana insha Allah dadka reewajid dhibaatadan ka badan oo qabaan go'doon wal go'doomi jidka la ka go'doomi xirka la ka go'doomi nolol la ka go'doomi heedihi lindiidi mustaqbalka iyo lahaayeen iyo walbarashada iyo caafimaadka iyo xaqnaha lindiidi insha Allah wala koonay hoo ilaahay ra intaas baahi oo jartay in la ku baah ardayda walbarasho helaan caafimaadka hanagna dhalinyaradii abaabulna shaqo abuur la suubiyo bulshada awoodan halayna iyo safar gala jirateeliska furo oo ilaahay rasidii horliishaadii wali ballan qaadano
safarkun safarka kihiga inuunu ka seeri doono jidkun jidkana ka kooyi doono tiirarka hogaamineed ee fulay waa kuwa ku qotoma ballanqaadyadii iyo qorshaha madaxweynaha koonfur galbeed ee dhaqaale wanaagga waxaa 1 iyo 2 ka ah la dagaalanka musuqmaasuqa aafeeyey koonfur galbeed Soomaaliya oo la dabar jaray kobcinta dhaqaalaha dhiirigelinta maalgashiga suuq u raadinta wax soo saarka deegaanka iyo yaraynta saboolnimada waxaa kor u kacay dakhliga gudaha 20% kadib markii la joojiyay cashuur dhaafkii aan daruuriga ahayn طبعا ميزانية تي مركل مربع دك سنتكي لما كنت مسيتك ولبا كدونا تي ويران بولكي بقى فرتن او كدرني ميزانية وسنة كانت 2019 تاسو ميل راي sababtay inay meel raay koronka dhaqaalaha oo gudaha ku harayaan iyo kan oo banaanka iyo kooy naftirshi isbedel weyn ka kooy isbedel oo waliba jaray meel raay ilaa iyo boqolkiiba 20 oo dakhliga gudaha uu ka sameeyay dhaqaalaha caroodaha saasoo kale meel raay un rajayna sanadkan taasoo doonay ku sii badan doonta dilaa insha Allah sanadkan sheegay waliba jaray inuu canshuura oo soo horeeyay qaadan kordhini oo kumada tash canshuuraadka lagu qaado shirkadaha waaweyn oo dawladda koonfur galbeed وشقيان لقاضو ولكن لسه كلا إن بلاونا إني وزارة أو دخل قسم ما يوم وشقيان دول لنا لعقوا يقاضين وزارة دي وسكوكار لانو سد وزارة جناسي واللي سمورين بيانا إني من رأي إن شركة وينا إيو جناسي دي ليس شات سيدا إن لعكتاسنا وزارة المالية كم شيء كده إن ساسو كلا من رأي إن وزارة بدن ويون دخل سمايا وني دغالب بدن ويون أرولي هاي وزارة المالية هكذا هاي saasoo kale waliba sameeyay lacagtan ka soo baawarta lagu qaado wasaaradda gaadiidka oo transferaalaha oo markii koriti meel raay satoos ee wasaaradda maaliyadda qaadaay oo account shala ka shabahay waliba rajayna in waxyaabo badan kale oo dhamaan insha Allah ani oo sanadka taasoo aan ifoodlay oo bilaaw doona dilaar oo kumadata guud ahaan deegaanada cusub in lagu qaado anshuurtii oo bariga oo ama maashka anshuurtii ka saayeen lagu qaado insha Allah oo rajayna madaxweyne lafta gareen iyo xukuumaddiisu waxay daadajiyeen dawladnimada oo lagu faafiyay gobol kasta degmo walba iyo deegaanada qaar degmooyinka iyo tuulooyinka Baybakool iyo Shabeellada hoose ayaa la gaarsiiyay adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada oo waxaa dib loo furay dugsiyo ku yiilay deegaanadii la xoreeyay waxaa dib u eegis lagu sameeyay tayada waxbarashada ee jaamacadaha iyo dugsiyada iyadoo la tababaray macallimiinta goobaha waxbarashada caafimaadka dadweynaha ayaa la horumariyay sida caafimaadka hooyada iyo dhallaanka la dagaalanka cudurrada faafa wanaajinta biyaha iyo fayadhowrka bixinta gargaarka degdega ah iyo daryeelka kuwa aadka u xanuunsan iyo kuwa qaba dhaawacyada iyadoo la hirgeliyay cusbitaallo iyo MCHyo كبير انتي نفس سوماك سأبت مسير ملوينو هالدواء رسيسو هالدواء ملوينو هالدواء صغير كبير انتي نفس سوماك سأبت مسير ملوينو هالدواء رسيسو هالدواء wasaaradda caafimaadka ka soo qaadnay wasiirka caafimaadka koonfur galbeed daawada intaan waa ka badnayd nasiib wanaag waxaan u weynay falaydkii laakiin way taalaa daawo intaan ka badanna waa keeni doonaa wixii baahi oo noo gudbisaanna waa qaadi doonaa hadda tiimka aan ku sheegay aan tababarna aan ku dhahay tiimka waxyaalahaas ka shaqeeya waa emergency ka shaqeeyaan way shaqeeyaan shaqadoodu waxay tahay emergency waxay ka shaqeeyaan waxa waaye cudurrada oo waqtiyada roobka dalaaco inay kahortag ay u sameeyaan shumbiyoodka daawadii waxa dhan qalabka dhan waa u yaala meeshaan geeyni waa tababarkan waa la siiyey waxyaalaha ka shaqeynayaan waxa waaye emergency wasaaradda caafimaadka waxay ka shaqeysaa waxa waaye MCH u furan baahiyaha maalin kasta way taagan yihiin baahiyahaas waxaa noo qaabilsan tiim kale kuwaana emergency tiim kale joogo oo shaqaalaha ka mid ah meesha ka shaqeeya istaalaha furan istaaladaas way shaqeeyaan wax kasta MCH-yadu way shaqeeyaan tiimkan tiim loo zaa'iday roobabkan waxaan jira oo muddo 6 bilood inay ku shaqeeyaan aan rabno
sanad ka hor magaalooyinka qaarkood waxay ahaayeen geerigoon aan la gaari karin way adkayd in la tago waxay ka caaganaayeen safarka dhulka iyo cirka balse waxaa dib u dhis iyo dayactir lagu sameeyey kaabayaasha dhaqaalaha waddooyin ayaa la dhisay kuwo kale ayaa la furay iyadoo la hirgeliyey garoomo diyaaradeed sida Baraawe Berdaare Dinsoor iyo Kambaydhabo kuwaas oo si maalinla ah duulimaadyo toos ah looga aado Muqdisho loogana yimaado inay caasimadda dawlad goboleedka iyo ka degahayaan diyaarado garoonkaas oo Baraawo oo wiilashii meel diyaarad ka degtay in hayna inay dadka Baraawo geeka ama Baydhabo hanbaha koraan ama xamar hanbaha koraan wali ku madataa waxyaabaha la ka guuleysidii oo noqon insha Allah wali kale yana muhiim haytay inay isla Dinsoor inay garoonsha dib waxbeen badan la ka soo biyay oo madaxweynaha yaana naftaana saanay oo xadaga ku jarnay arrinka lamaada haytay garoonka Baydhabo naftiisa oo naftiis wal badan ku qobaday dib waxbeen badan la ka soo biyay dayactir badan la ka soo biyay naftii mashruuc kale oo fuliyay haytay jidka iskiiraaw afgooy oo xamar isku hiraaw araga haytay shaqada dareerta dawladda shaqo faylinga dareerta insha Allah wali rajayna shaqadaas inay dareerto meel walba hadeerto rajayna insha Allah taala ilaa ku diiraw caasimaddu ku meel gaarka in jidka hadeero rajayna anta ilaa ay Baraawo in jidka saasliin hagaajiyo rajayna 2017 heerka shaqo la'aanta ee dhalinyarada waxbaratay ayaa sii kordhay taasi oo laga dareemay magaalada Baydhabo suuqyada waxaa buux dhaafiyay dhalinyaro shahaadooyin shandadaha uga buuxaan oo haddana baagamuudo ah iminka shaqooyin ayaa loo abuuray siyaasadii baa laga qayb galiyay waxay bileen dawladnimada waxaa laga shaqeeyay isdhexgalka dhalinyarada degmo ilaa deegaan iyadoo la qabtay tartan ciyaareedyada kubadda cagta iyo kolayga waxaana la qorsheeyay dhismaha garoomo casri ah oo roog la gogli doono oo uu ka mid yahay kan Baydhabo garoomada qaarkood waxaan u haynaa lacago ay nagu yaboohday dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo loo dhiibay 3 degmo kadibna madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa wuxuu soo dhagax dhigay garoonka degmada Waajid oo ay dhisi doonto dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya hadduu Ilaahay yiraahdo booqashada ku xigto markaad garoonkan imaatiin waxaan rajaynaynaa laba qodob mid ka mid ah inaad u imaatiin ama garoonka oo shaqadiisa gacanta lagu hayo ama garoonkii oo dhisan oo roogii yaal inaad imaatiin Baydhabo oo ah goob nabdoon hadda waxaa ka suura gashay in dhalinyaradu kubadda ku ciyaaraan garoomada cagaaran xilliyada habeenkii iyagoo goor dambe magaalada ku caweeya ciyaarana ku daawada balse sanad ka hor xaalku sidan waa ka duwanaa magaalada oo koboc ballaaran sameynaysa qurbad joogta oo ku dhiiraday inay dalka maal gashadaan iyo ganacsatada oo kalsooni ku qaba ammaanka magaalada ayaa sababay in la hirgeliyo goobo ganacsi hoteelo iyo beera lagu nasto waliba kumada dhalinyarada magaalada Baydhabo saad aragahayd waliba waqtaha miin waliba roognaa ko kumada garoomada salaxaga oo beledka Baydhabo kiyaala gaaraan xaafadda Holwadaag saad aragahayd waliba ka dheelahaayna lama team oo isbalansatay oo dhalinyaro taasna waliba muujaasa ama tusaalahan aanta magaalada Baydhabo dhalinyarada hormuudku ay isbedelka dhinaca bulshada iyo waliba isdhexgalka qaybasho duwan ما شاء الله أبني شبيدو إيد بقول كيف بقول إري هذا أنا أفر مرة كوي هذا لا يمين كوري تمركي أفرات هدو ما شاء الله بيدو جيك والكفايلة تمله إلهي روب شاني خووا نيشاني بدأ حوينا فايلنا نيكوي وداعده وهكين سرو مو تشي والأنترهاي إيه أنك فرح سنة أبني بيدو جيك يالا أنت ولي جاي مكوين مركي إنك هريتي ما يعني أو أنت كويو هذا أنت أو مدحوين يقول قبصدي أنت كهريتي لكن ما أرقنا من الناس كويو عانا لك دمو عانا السوق لا إنك كذا الحمد لله أمني بقول كيف بقول إريها تبيدو إله وصدق إسك فايلن إنك وذا إلهي أنك رجعنا كونفور قلبت مقالة بيدو قارحان آدي إسبدل كم مقدم لنك لنيرد وأنا كسوق هذا لنيرد بيدو 5 سنة أما 6 سنة كهر سان ما يهين أو مقالة وحي هاد إسكدنسن أو لير عن هين أو أذكتها إن للداود كوبا دعك أنا ما دام أنا قاعد نيرنا كوبا دعك وحي هاد بوزيشن كان نقول أذك إن أنتابنا مغرب كان حرون جرني ما هي سن ميلان عيار كداون بس هاد واحد ما هاد علينا لما ما برر كونفور قلبت قارن غير بدو وحي بقول كيف بقول كود دلنا إلا هلو أمني سيدنا نيرض أو هلان فرصة عيارها كود داودان
waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo kaalin ka geystay in magaalada baydhabo saan ay noqoto gaar ahaan laamaha amniga kow ay ka yihiin oo amniga boqolkiiba boqol ku dadan haweenkii markaas socdo waxaa arkay askar oo meelaha oo inta dadka kale ay jiifaan oo askartii banaanka ay istaagan yihiin saad rabtid hadda waxaan ka imaanay salax oo hadda 4 saac tahay salaxan ka imaanay oo soo ciyaareen soo marka hadda ciyaaran daawanayna oo isbaal iyo kooxda Inter Milan ilaa waxa ku gaarayna 7 saac soo marka taas waxa ku muujinaysaa amniga magaalada iyo si ay u horumarsan tahay waxa way meeshan waxa loo imaanayo wax dibadda wax laga helayna laga helay first of all koodii wali ka helaana caani helaana dadka badana wali ka dhiilayso kor idhiikan waddankayna oo nabad ah caani ka dhamaana soora ka aamana alxamdulillah alshukrillah wallahi alxamdulillah habeenkii wax dhibana ma haysto amnigeedu waa okay ilaahay baa mahadlay alxamdulillah nabadgelyo wanaagsan aan ku macnaha aan ku ganacsanaa ilaa habeenkii 12 ilaa 5 ayaan macnaha aan shaqaysanaa alxamdulillah waa nabad ilaahay baa mahadlay alxamdulillah kah iyo iftiin baa u baxay bulshada koonfur galbeed Soomaaliya maalmuhu waa isku mid balse kala macno duwan qalalaasihii waxaa lagu bedelay qorshe siyaasadeed deegaanadii waa kuwa nabdoon waxaan arkaynaa koonfur galbeed ka duwantii hore xaqiiqdii waxaan isleenahay ka dhaqan ahaan in koonfur galbeed ay gaartay horumar aad u wanaagsan dhan walba leh amniga siyaasadda dhan walba markaad u fiiriso xagga horumarka dib u dhiska waxaad moodaa in tilaabo wanaagsan ee koonfur galbeed ay hadda ku sii taagan tahay wadadeeda xaqiiqdiina taasna waxaan ku ammaanaynaa madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Laftagareen wax dhibaato ah oo dhib ah ka dhacay ma jiraan oo ciidamadii tiradooda waa la sameeyay tiro ahaan waa loo sameeyay tayana waa loo yeelay maamuladii degmooyinka waa la dhisay maalin walba madaxweynaha wuu duulaa degmooyinku tagaa dadkii uu la soo shiraa dhibaatada haystay iyo amnida iyo waxaas ka soo wareystaa annaga waa u jeednaa waa ilaalinaynaa marka wax badan ayuu ka qabtayaan dhihi karnaa dowladnimada hadda wuxuu sameeyay annaga baarlamaankana 149 ayuu ahaa dastuurkeenana waxaa nooga qornaa 95 asigoo adkaynaya dowladnimada wuxuu ku soo celiyay dastuurka 95 in la keeno odayaasha arrintaas xoogaa walwalay ka qabeen inay suurgali dooneen iska qabsi ka dhacayaan islahayn laakiin dhiirigelin iyo dowladnimada iyo dastuurka ilaalintiisa soo muujinay isaga madaxweynaha dastuur ilaaliyaha waay waxaan ogsoonahay in waqtiga hadda lagu guda jiro waqti roobaadka ay tahay in dowladda koonfur galbeed oo hogaaminaya madaxweynaha inay aad u garab istaagto bulshada reer koonfur galbeed ay ahaydna waajibkooda saaran sidai u garab istaageen dadkii ku soo fatahmeen biyihii iyo roobabkii faraha badnaay xaqiiqdina doorkaasna waa door aad u muhiima oo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed aad ugu rayaaqeen sidai garab istaagga muuqatay ee koonfur galbeed u garab istaagtay shacabkeeda dhibaatada ku jirta meel u baahato shabeellaha hoose baayo bokolba marka waxaan isleenahay horumar aad wanaagsan ayaa la gaaray muddada yareed hadda ee dowladdan ay jirtay dhaqanka reer koonfur galbeed mar kastaba waxay garab taagan yihiin ay isu dhaarsadeen dowladda Soomaaliya iyo tan maamul goboleedkaba inay garab istaagaan dowlad la'aan inay dhibaato tahay 30 sano soo marnay annaga boolis ahayn annaga maxkamad ahayn annaga dhiig biyaal ahayn dhibaato badan ku qabnay dowladnimadana waxay tarto ayaan aad u ognahay marka sidaas daraadeed dowladdu odayaasha dhaqanku way garab taagan yihiin waa tahay dhumustayaal meelahaas ay ku duusaasan waaraadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya tusmooyinka hogaamineed ee xukuumadda iyo xogharidda shacabka ayaa dadka deegaanka waxaa u fududeysay warbaahin ku hadasha afka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo wax ku gudbisa lahjadda mayga ee af Soomaaliga taasi oo looga hadlo gobolada Bay Bakool iyo Shabeellada Hoose maanta waxaanu leenahay warbaahin ay leedahay dowladda koonfur galbeed Soomaaliya oo isugu jira warbaahinta maqalka ah sida raadiyo koonfur galbeed Soomaaliya iyo TV-ga ugu horeeyay ee reer koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan ku hadlo dadka majority-ga ku ah gobolada koonfur galbeed Soomaaliya kuna baxo luqadda lahjadda mayga sidoo kale wasaaraddu waxay leedahay xarun weyn oo dabcan
ay ku shaqayso wasaaraddu oo raadiga koonfur galbeed iyo telefishinka koonfur galbeed Soomaaliya intuba ay ku yaalaan annagoo gobolada dalka koonfur galbeed bay bakool shabeellada hoosana gaarsiinay warbaahinta TV-ga marka laga tago maqalka ah oo raadiga koonfur galbeed Soomaaliya ilaa 6 degmo ay haatanba ka shaqeeyaan madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen waxa uu la kulmay inta badan safiirada Soomaaliya ee caalamka iyo hay'adaha samafalka ee gacanta ballaaran ka geystay dib u soo kabashada Soomaaliya iyagoo ka wada hadlay qorshaha lagu sugayo ammaanka hirgelinta mashaariic horumarineed xal u helidda abaaraha soo noqnoqday iyo dhowrista xuquuqul aadanaha wasaaraddu waxay ku guuleysatay ugu horreyn in ay ahayd kaliya mandatekii ahaa qorsheyntii iyo isku xirkii isku duwadii wasaaradaha iyo mashaariicda ka sokow la ilaaway aysan hal marna aysan howl ka qaban wasaaradda arrimaha maalgashiga iyo arrimaha horumarinta dhaqaalaha oo xasaasi nooc annaga haddaan rabno inaan horumarno marka waxaan ka shaqeeyay labadaas waaxood inay shaqeeyaan aan u qorno shuruuc muhiim ah oo investment policy ah ilaa heer federaal aan ka qayb galnay shir waxaana ka dhashay policygii iyo annaga waxaan geynay in European Union ay yiraahdaan waxaan qabanaynaa forama oo lagu horumarinayo maalgashiga kii ugu horreeyay wuxuu ka dhacay Puntland waxaan rajaynaynaa ku kale inuu ka dhaco magaalada Baydhabo midda saddexaad waxa waaye horumarinta dhaqaalaha ayaan wax badan u doodaa aan ka shaqeeyaa horumarinta dhaqaalaha marka lagu leeyahay waxaan aaminsanahay ka dawlad ahaan siyaasadda madaxweynahan ay tahay uu madaxweynaha uu aaminsan yahay in wadan haddii la rabo inuu horumar gaaro waxyaabaha ugu muhiimsan xataa amniga ka muhiimsan inay tahay horumar dhaqaale in la helo kobac dhaqaale in la helo markii la helo horumar dhaqaale ayaa amni la heli karaa sababtoo ah dadka qofka hadduu baahan yahay oo shaqo uusan haysan dhalinyar uu yahay waxaana soo bartay wuxuu mar walba u sahlan yahay in uu aado meel kale xataa khalqal amni keeni karto marka annaga waxaan mar walba ku dadaalnaa 30 sano ugu soo horeeyayna hay'adaha aad ay xoog u saari jireen arrimaha horumar gargaarka iyo humanitarian waxay dhahan aniga marka waxaan ku doodnaa wixii mashaariic aan noo haysiin iyo wixii arabtiin deeq-bixiyaasha in xoogga la saaro wax soo saarka waxay yiraahdaan productive sectors of the economy weli xoogga in la saaro beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga maadaama anaga hodan aan ku nahay saddexda gobol haddaa fiirisid shabeellada hoose waxay hodan ku tahay beeraha iyo kalluumaysiga bay haddaa u imaadid beerahii ay hodan ku tahay bakool haddaa tagtid waxay hodan ku yihiin xoolaha iyo hodan ku yihiin marka haddii la horumariyo waxaa aaminsanahay annaga le maahan in Soomaalida kale xataa sidii awalba ay jirtay aan qoodin karno oo horumar dhaqaale la sameyn karo shaqo abuur la sameyn karo dawladana dakhli uu soo gali karo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo uu heliyo madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa booqday magaalooyinka Marka iyo Xudur waxaana magaalooyinkaasi laga hirgeliyay garoomo lagu ciyaaro kubadda cagta taasi oo looga jawaabayo baahiyaha dhalinyarada iyo isdhexgalka bulshada dhaqaalaha ku baxaya dhismaha waxa bixinaysa dawladda federaalka Soomaaliya bilowgii Oktoobar ee sanadkan ayay ahayd markii gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti mudane Maxamed Cali Xaamud oo uu heliyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ay booqasho ku tageen magaalada Baydhabo dawladda ayaa ka jawaabtay masiibooyin dabiici ah oo ay ka mid ahaayeen jiilaalkii iyo barwaaqadii oo sababay abaaro iyo duufaano ka dhashay roobabkii guga iyo dayrta iyadoo deeq raashin ah hoy biyo nadiif iyo daawooyin la gaarsiiyay dadkii dhibanaha u noqday masiibooyinkaasi alxamdulillah ilaahay wuu hadda naga soo badbaadiyay diyaar garow badan loo galay abaarihii xogaa dhibaatooyinka way yaraadeen sidii markii hore macluusha ay u dhici jirtay oo loo baabi'i jiray ma ahayn hadda tii ugu dambeysay hadda jiilaalkii la soo dhaafay xogaa dareen baa jiray oo ah in saameyn badan ay ku yeelan doonto deegaanadan koonfur galbeed abaaraha iyo waxa loo yaqaano faymanka ama abaarta loo yaqaano kadib wasaaradda qorshe samaysay oo ah inay u diyaar garowdo in haddii ay dhacdo in case ay abaar ay dhacdo maxaa laga sameyn karaa maxaa noo yaallo maxaa ku diyaar garownay runtii wasiir Caruush oo wasaaradda mas'uulka ah oo hadda safar shaqo ku maqan iyo waa la tashtay marka wasaaraddu waxay go'aamisay in loo diyaar garoobo in case haddii dhacdo abaartaas laakiin fariilaa alxamdu sidii la filayay ma noqon xogaa kuleel baa yimid xogaa laakiin beerihii way abaarsadeen laakiin barakac badan iyo dhib badan ma jirin inkastoo wasaaradda iyo dawladda ay diyaar garoob badan u gashay
kadib markii laga soo baxay ilaahay haddana wuxuu na siiyey deertan roob badan laakiin waa aragteen waana dareenteen diyaargarowgeenna saa ugu gurmanay marka waxaan ugu darnaa degmada Bardaale intaas waxaa dheer markii qeyldaanta ay timaado waxaa meesha sii tagay haddana wasiirkii wasaaradda arrimaha gargaarka Mr. Naasir Cabdi Caruush kadib waxaa meesha tagay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wafdi uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha oo runtii u gurmaday dadka Bardaale iyo aan dhihi karno waa gurmasho xoog leh bay ahayd ra'iisul wasaaraha xataa meesha ka shaaciyay in garoonka degmada Bardaale uu yahay garoon furan oo laga soo degi karo uu sheegay uu dhahay anaa ka soo degay hay'adaha qof walba oo raba inuu Bardaale caawiyo uu imaan karaa marka ra'iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne Lafta Gareen waxay runtii u istaageen inay aad u caawiyaan dadka deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Bardaale dadka dhibaateeyay runtii saameyn weyn bay ku yeelatay dadka iyo nolosha iyo caafimaadka iyo waxbarashada waxa dhan dhibaato weynayna dadkan haystaa marka waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaaho dadka walaalaha ah oo Soomaaliyeed jaaliyadaha ganacsatada hay'adaha samafalka dawladaha nin allaalay ninkii wax haysto inuu dadkan walaalahooda biyaha uu fatahaad dhibaateeyay oo banaanka joogo guryahooda banaanka joogo oo kaalmeeyo oo u soo gurmadaan codsanayna ay ugu horeyso dawladda federaalka oo jawaab fiican ka bixisay waxaan rabnaa inaan u mahad celino hay'adihii samafalka ahaa oo gurmadka soo sameeyay daawada keenay mucaawinada kalena soo gaarsiiyay dawladda federaalka oo ra'iisul wasaaraha ugu horeysaasoo kale ayagana noo soo gurmaday iyo wixii ayna soo gaarsiiyeen dawladihii sida dawladda Djibouti iyo dawladda Qatar oo walaalahan ayagana mucaawinada ay soo dhiibeen waana soo gaartay waa uga mahad celinaynaa kuwa kalena waxaan ka codsanaynaa inay saasoo kale dadkan u soo gurmadaan socdaalku waa dheer yahay dowladnimo curdina la gaaray waxaa loo socdaa Koonfur Galbeed nabdoon magaalooyin bilicsan leh garoomo diyaaradeed oo casri ah wadooyin laami ah dibna loo furo socodka gaadiidka Baydhabo iyo Muqdisho iyadoo loo guuri doono caasimadda rasmiga ah ee Baraawe lana yagleeli doono dekad caalami ah oo hodonnimo u horseeda dadka deegaanka waxaa lagu nagaan doonaa halka geedu ku eg yahay oo ah qabashada doorasho qof iyo cod ah si dadku u soo doortaan cidda hogaaminaysa Koonfur Galbeed waxa laga qabtay hal sano waxay jaantus muuqda u tahay hoggaanka hagaagsan ee xukuumadda oo muddo xileedkeedu ku eg yahay 4 sano